بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إلهي mahad leh. maanta waxaan halkan idinku yeeray waxa weeye dhowr qodob baan doonayaa inaan ka hadlo oo hadda taagan dalkeena ka taagan maadaama hadda aan muddo 6 bilood ka soo maqnaa. waxaan jeclahay inaan iftiimiyo arrimaha maanta Soomaaliya hor taagan aragtideeda xisbi ahaan iyo shakhsi ahaanba. waxaana maanta press conference-kan ugu talagalay si toos ah inaan shacabka reer Soomaaliya aan ugu warramo. waa marka horeyse anu hadda muddo 3 bilood ka soo maqnaa dalka. muddada 3 bilood ka soo maqnaana waxaan ka shaqeynayay inaan wadamo Yurub u badan inaan arrimaha Soomaaliya iyo Soomaaliya aan isweydaarsan wixii warbixina ilaa 9 wadamo soo maray oo kan ku 9 yahay. wadamada waxaan la wadaagay aragtidii aan ku leenahay wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliya, arrimaha doorashooyinka iyo dhaqaalaha Soomaalida qasiinayo sidii aan u aragnay loo qiimeeyo. marka hore waxaan u mahadnaqayaa dadkii suurta geliyay inaan socdaal qaato dadkii gudaha joogay ee Soomaaliya gudaheeda gacanta dhaqaale siiyay iyo kuwii dibadda joogay tijaarada sida Soomaaliland ee hudheelada ka bixinayay iyo xaaskayba meeshan tiirka ay jirisay. inta waan u mahadnaqayaa. markaan ka hadlo arrimaha Soomaaliland iyo Soomaaliya, Soomaaliland waxay la dagaalantay dawladdii Maxamed Siyaad Barre dictatorka ah. dagaal dheer buu ahaa, maalin muuqdo loo horay. ujeedada loo dagaalamay waxay ahayd in la soco qaladkii 60kii galay ee ku yimid maqaana sida caatifada ah ee Soomaali weyn baa doonkeeda ahayd, taasoo rikoorka ay nagu jirto ilaa 50,000 oo qof ku dhinteen oo innocent ah oo shacbi ah oo xasuuq ka dhacay meesha genocide. magaalooyinka oo dhan dhulka la simay ilaa 2 milyan qofna ay u kaceen waddanka Itoobiya u kaceen. ilaahay mahadi subxaanahu wa tacaala weeye guushii ilaahay baa nasiiyey. guul nagu taariikh khasaaro badan nagu gaaray ahayn, qiimo badan nagu taagay. waxaa la goosay 1990kii in qaranimada Soomaaliland dib loo soo celiyo. reer Soomaaliya dhanna way isku ogolaadeen. intii ka bacdi waxaan maanta samaysanay ee shacabka reer Soomaaliya sameeyay ay ahaayeen wax adduunka wax yar naga soo gaadheen inuu gacmaha ku qabsanay. maanta waxaa nagu tilmaamaa oo u dibisay maanta seen Jarmalka tagay saada arrimaha dawladda waxay tiri Soomaaliya waxay noqotay example geeska Afrika ee dimuqraadiyadda iyo nabadgelyada ay noqotay. waxay noqonay dalka qoray maanta adduunka jireen amaah lagu leeyahay wixiisu ay gacmaha xoolahooda gacan ku qabsadeen. Soomaaliya dawladdii aan la dagaalanay way ka baxday meeshii. laga bilaabo maanta ilaa maalintaas dawlad kama samaysmin Soomaaliya. xubin dawladda magac ku yaala bal soo ururiyay ayaa dawladda Soomaaliya. maanta waxay isku keen jireen Soomaaliya ma jirto. isku lacag ma nihin, isku baasaboor ma nihin, isku calan ma nihin, isku dastuur ma nihin. qadiyada Soomaaliland waxay taageer tahay internationalka ummadda ayay hortaada. adduunka stateska ixtiraafa inay nagu stateska adduunka ixtiraafkiisa ka raadsanaa weeye. dowladda Ingiriiska ayaa markaa waxay qabanqaabisay 2016 bishii February shir baa ku qabanqaabisay ilaa Somali conference in London.
dowladdaas oo aad iyo aad gacan inooga geysatay magaranaysaa dimuqraadiyadda Somaliland oo inagu ahayd magaranaysaa ixtiraam waxay naga codsadeen shirka ka soo qayb galno waynu ka soo qayb galnay shirkaas waxaa lagu heshiiyey in Somaliland iyo Soomaaliya ay si lixdanka u wada hadlaan laba state u wada hadlaan dowladda markaa ku-meel gaarka ee Soomaaliya shaqsiga madaxda ahaa iyo wixii bedelaba ay ka taliyaan suu noqonayo xiriirka u dhexeeya arrintaasi arrin laynagu lahaa ma ahayn laanno marka la yidhaha wada hadla laba wadan oo kala tegaya waxa weeye laba wadan oo kala bixi waaya si Suudaan iyo Suudaan laakiin suurtagal ma ahayn marka la yidhaaho Bosnia Serbiinta la hadla waxa lagu jirtaa soo kala tegsi haddana inagoo ixtiraamina oo isla reer Soomaalina aqli bay doonaan sidii markaa u kala baxa Czechoslovakia iyo Slovenia amba Ethiopia iyo Eritrea ayaan ogolaanay waxaa ka bacd aragtay dowladda nimanka waa dowladda federaalka ay aragtay dowladdaasi isla markii waxay bilowday aan ka shakinay inay wixii dowladdii hore lagu heshiiyey iyo adduunka inay kala leexanayso dowladahan ku heshiinay in 6 wadan ka shaqeeyaan oo dowladda Ingiriiska ka mid tahay Norway ka mid tahay Switzerland ka mid tahay European ka mid yihiin way ka leexatay arrintii gacanta waxay u geliyeen Turkiga arrinteena waxa la wax ka yaqaan ma jiro ilaa maanta waan ka biidinay haddana asxaabta mucaaradka kuwa qaar waxaan ugu sheegaynaa waxa feeshay u diidiya waxa laga saaray magaranaysaa delegation anaga qofkii taga wafdiga reer Soomaaliya ku kalsoonay laakiin wuxuu la tegay waan noqdo waxaan la jab ku ahayn oo qadiyada Soomaaliya aan wax yeelay diyarad baan raacay maaha meel baan tegay oo sharaf ma yar qadiyad baa laga hadlay waa qadiyad hadda wada arko waxa ku dambeysay burbureen qodobkaan waxaan ka taaganahay Somaliland haddaan adduunka la soo hadalnay amba Soomaaliya dadkii yiri la hadlaa ku qasbay Soomaaliya xaqada dhulka taala sidii lagu heshiiyay ku socdeen oo yaan u afduubnaanin Turkiga Arabtiga hay maadeen mediation dad mediate garanaya dad leeyahay wada hadlo istilay waan dad dhexdhexaadin ay maadaan markay ku qabsadaan wadamada inay ka soo qayb galaan way Turkiga aan kaliya ku noqon Turkiga waxa weeye inuu noqdo hadduu ka qayb galiyo mid ka noqonayo inuu dadka u sinaado 49 mashruuc galiya soo ah Muqdisho kaliya annaga hal mashruuc mumkin marka nin meel la degan oo inta gashaday oo maalgashada oo degadii la wareegay oo galboorkii la wareegay oo degan halkaas inuu annaga laga waan idin simanay dama yeelin Turkiga waan ku yeelaa معاوضة وخبيحية انتو ان لاغ السبحية لا وانو تسوق ليها وضمتك شغله كلها ميديترنا ونقضها الحادية وحق عندنا الحادية هذيك لو ان الدول الصومالية اي كبح راس اي 66 اول ما سميتنا ادونكا اي منطقة قديم ديالك عندكم اي ادونكا ولكسا 66 ولكسا نيكي انا والله انا شرتي اللي ماشي ما شفتو دولتها جاكسين كم شفتو في صوماليا ودولة أنا حتى تلدي الكوتشرين أنا قارين حالنا أنا كتير هذا كاستان هاي Soomaaliya waxaan leeyahay iyo hadda noo joogo wada Soomaaliya meel xubin ku socota rag baa jira Soomaali ah oo doonaya in Soomaaliya la baabiyo wadamo yar laga dhigo oo qabaal ku samaysan waxa ay stabilization force leedahay idama jooga ashiishaya anigu ma aragna taas waa recolonization force dib baa loo qabsanaya Soomaaliya dib baa loo qabsanaya waxaana mas'uul dush ka saaranta waxa weeye siyaasiyiinta taageeroy kuwa maanta intay maanta fadhisan yihiin laas caanood 6,000 oo ciidamada la kala amsan waxaan leeyahay shacabka Soomaaliya
وأركز سيال وقالك الصوماليا رولك مابكي قلوا ولا وسمي إنك لا يلوص وصلا وتمان الدبة أي ليه يحكوا على كلام حلو بهاي إنه يصوبينه مرت ما حسوا إنه بدين حلو بهاي سومالان elections بقى صعب الدنيا كدعان وقت يجيو رمادي دولة ما تجوبتها نظام كي دولة ذو بقولي حبيان بيلا وش يكسن security ما توجه ما أنت دليلتين ما أنت سوقا ذاتك كوبود بسا لكن نقولين رجالان ما أنت بنبيل جودي ليا وإن بتقليد نقول فين نوي تقالي إن لو سمعش مريض فهيدي واسيب خربي ذاتك بقى فرمي بينما دي بقى حماتي دولة الصومالي اللي يدي صومالي هجاجي أو صومالي هجاجي واحد بريوت كده يقتني إنك أندرماين إن أندرماين قريب هنا إنك السيد محمد سياد برئيس كو كان درت هنا يدت إنك إنك ترسل أيسمسو هوبسيسو هنا شباب أصلا مايسو يا ما تقرأ حاليا أنا كوا عين كاشيء محمد سياد برئيس أو نمسك صومالي وفينا أو دلال بنا أي كل في كوريين الصوماليين وبابيو إنه سوق خير درو أنتي سوق خير دي وخلق أما إلهي سبحانه وتعالى نور نماتي halkii la yiri war hagaajista wax oo dawlad noqdo oo magacan saay wax sameysna ayaa wax bilaabeen inay inaga dhexda ka kalumaystaan si taa looga baxo oo dadkii loo miday xaloo baahan shir la isku yimaado shirka anoo shir qaran micnaheedu ma dawlad way fiirgooday wadanteena shirka qaran waa inay ka soo baxdaa wixii laga gudbi lahaa inta dawladdaas ee turkiso maadaama ay dib dhacday extensionka soo baxaya maaha mid siyaasadeed 26 June way ka dhamaatay labada goloba wasaaradda iyo baarlamaanka wixii laga bedel lahaa ee laga bixi lahaa waa in la isku yimaado halka ay ka soo baxay dawlad mid nabad qaran ah oo arrimaha inagu foolan ee nagu soo socda si midnimo ah aynu kaga baxnaa oo labada inaan ilmaadayarka ah ee maanta soo saaray communique ee moodiyeen Soomaaliya ka aqli badan yihiin antaagtood tusna oo la saaro sheekadu noqonay ay dhulkooda noqota ilaahay hadda laakiin halkan waxa ka socda maanta niyad jabka dalkeena waxa raga ka hadalsiinaya waxa weeye waxa arkayaan waxa TV-da ka socda xaleena shacabka Soomaaliya سياسيين ترى سومالا أنت هايستاين أنتو شريت كقبسنا سيراهنا وحنا مدحوينا سيراهنا وحنا سومالا كعمها يا كوبا طول من بعد هاي لا من بعد هاي وأنا دلكني نرتجليسة يمدمس كشرايسة رجع كل شيء كيسان يا إنه أقول رفته لو صار أحباب دوك نجمو قليل حلال كل شوي تلك الله بس أنا كل السباقات شركة هذا لقمة وين أنا جا شركة قمنا أنا جا مدرسة حسب الكلمة عارف كقبل لأن لو أن أغني ما أنت تقاد ضد تولدين ويرتي أنا جا ضد كبد بعدين كو إيه مين ما هدي أرد ما كان مريض ما هدي مريض اللي يحكون على كلام ما هذا الله بدأ أنا نافي الموسيقى المادرك أي نوت الشان يعني سيدي أداء يسوكي لواتك يكون كأنه حمل بربوريه يكشوا بكارة بربوريه حسوقي هذه أنتي هم بدوين ما أنت سلمان كسمايا كسوق منه هذا ذلك الدافعين نظام كلا جسيا وحلينا هاي سيرايا كبح وعلينا والولي ذلك ما بدون ذلك الباب ذلك الله بربوري الله باباي أفر قفوا ينهلا هنا ذلك أي عياران أو بتخيل ما أنت لوسو هنشلو ما أقولنا أنا أكسبت بالتحصيل الله وأنا لسوي ماذا سيدك ده لسوي ماذا شدك ده لقطة لا توصلين الموضوع هاي إنا مقالات هم قلنا إنا ندلكن إلى الشمال قبل كجاب وأنا شايفنا
waxaa halkan ka baxaya dadkiina jooga dibadda 18 May waa inaan tusnaa halkay inaga taagan tahay waa inaan dawladaha la joogno waa in waddan kastaba ururka la yidhaha Somali Society Europe waa inuu soo sameeyo warqad standard ah waan wada hadalnay Cabdiraxmaan gudoomiyihii France ku jooga waa inaan petition dhiibnaa waa inaan qadiyadeena aynu ku heesinin aynu ficil ku darnaa aniga waa dhici kuma tariso nin kasta waddanku joogo waa inuu ka shaqeeya oo geeya maalintaas waxaan aad iyo aad u ogaadaya magaalooyinka Cardiff, Bristol iyo Sheffield waxay ogaataan inaanay magaalooyinka wax ixtiraafin magaalo wax ma ixtiraafin waa ay mutayabeersi inay saddex wasiir yimaadaan بينها واحد احترافي دوين مقالة المقال waxaa ka fiican MBA-da MBA Sheffield afar bay leedahay waxaan jeedaa Bristol Sheffield 5 ilaa 6 bay leedahay MBA-da inaan urursan kuwa Bristol urursan oo qadiyadeeda baarlamaanka la geeyo local kasta wax ixtiraaf la maaha haddayna ixtiraafiyaan oo shaqaynayaan wax hadayna u yimaadaan wakiilkeena halkan jooga كأنك كلا إلى أمباسير أدلارج جاريدو لكن يستطيع إنه الرئيس يسكون سورة عام وي مجانا ساي تجد سوق سوقيان أنت سوقنا لقى مساكين تدفع عشور تول هذا هو بهاي شيفيل بري أبطل تقول يستطيع وسير رمين لكن أنت شعب هذا دجان هي السماء وأنت تغيري وأنا في عمتي إنبيذ المقطع لما يوحد يدمر واحد يشيء يسوي السماء ولا نوسو مقايا سين أصعنا إسكال اعترافه وحقتك وشرتك إن سيدي منطقانا محمد سياد عليه إن نقول ديار هين وديار هين هو هذا إن نقول ديار هين ما تديار هو كيا وقيل إنه غير هذا ريه من الساشي يا ما تقول وأنا كعنا كم عايز قفصنا أصحاب تقولك دقنا قارن ما كشغين ما أنت قارني ما له بعض قارن كين خطر مري ما أنت إنه هنتبي كان لبلا أنا المعلق يعني لحكوا على كلا صعب هو بقارن إنه وجهنا إن لا ينجب بغيه ما كانوا حليه وحلينا هاي هم سووا المهزنتي دولة دول حنقول لنا هاي يعني سيرايا ودعمنا السيرايا وحلينا هاي ريال جهو ساسين يعني جهو ساسين تلكين ما أنت ما يرحم بمريا يعني بين المشي هنا وش وأنا نطلع سكوننا استغفرنا هاي السلام عليكم ورحمة الله أنا إيشو غير هذا وحنا كهذا لا هذا إيشو أنا كهذا قال هذا أو بسنة قال هذا أنا واحد قدومية كل أعرف ما بضبط كذا شيء صدق بلوت ضد إنك دبيتي سكون مقارنة دور دور نيجي حالة السومالية اللي هو أنا واحد كنا واحد شيء إنه خطر بسوريا هاي دولة باجرته المدحوينا مطورتي باشوجا دولة دو حبت تشوف دولة كلا صوت أريمها هنا دوري سنة ذيك يوم بدرش أسمعتين نسكاش كان معارض سيدي بصورة قالوا قلنا قلنا صادق كرير سومالا بطلع وصورة قالوا مركز إسكوي ماذا الشكل إسكوي ماذا سيد الصورة تجلس على الدوري وحي الصورة قالوا قلنا لكن وين إسكوي ماذا قل روح اللوكسون الصومال النظام بيلاقي إن عدي سياسة دون سنة dalka ka taliso wanay raacdaa saddex isbiid ilaha madasha wada tashi saddex isbiid midna maaha marka ma la oran karaa in daciifnimo darteed labadina xisbi mucaaradka ogeed aad noqoteen buur ku tiirsanow ama buur haw maya waxa weeye madasha waa forum waa pressure group wey meel kasta pressure group jira women's movement baa jira maaha jira waa movement nimanka waa nimankii siyaasiyiinta xidada mujaahidiinta marka waa independent mataqaana politicians isku tegay si ay arrimaha Somaliland uga hadlaan oo fiyuga uga sameeyaan forum bay sameeyaan marka wax dhibaato dastuur diidayana ma jiro marka waxaan leenahay waa macaaridku ma sii batay wixii aan labada xisbi ka maqan ka baxsan xisbi ka baxsana siyaasiyiinta oo forum sameeyay
gudoomiye hadda ku weydiiyo arrin ka baxsan somaliland maadaama soomaaliya guud ahaan aa ka hadashay dowladda soomaaliya oo hadda dhisan waxay sheegtay ama inta badan ay sheegtaa in dalka guud ahaan ay gaarsiinayso federal maamul goboleed ay dhisayso doorasho 2016 ay gaarsiinayso hadda marxaladda ugu weyn ama ugu dhibka badan oo dowladda ay hogaaminayso xasan oo hogaaminayo waxay tahay maamul goboleedyada maamul goboleedka ugu dambeeya hadda jubba waa soo dhisay sida oo lagu qaada ama koonfur galbeed haddana gobolada dhexe taagan tahay ka waran arrimahaasi maamul goboleedyada dowladda dhisayso adigu ku guulaysan kartaa isla may hortaan ku warramo Jubbaland waxay ma jirto lana Jubbaland 3 gobol ka tirsan tahay 2 gobol waxa haysta wali gacantooda kuma jirto waa Kismaayo meesha imanka laga sameeyo marka tobaad qolalka soo wasleeyna wada u dadkaas 6 gobol bay ku heshiiyeen oo 6 gobol bay ku heshiiyeen ka soo jeeda goboladii loo house-ka loo jubiya barjuubahan har cad baa laga boobay har cad baa inta laga boobay waa 3 baati wala aftuubay wax ka raali ma jiro neeshi dad kaan aftuu karin waa gobolada dhexe ilaa lamaanta gobolada dhexe ma lagu heshiiyey laguma heshiiyey marka qolan waa fake Jubbaland waa fake baadheer ma joogto bu'aal ma joogto waa magaalo Kismaayo baydhamana dadku ma rabaan inay digliya midable inay lixdoodii gobol ay la 3 yeeshaan ayuu laga xoog baday politically and military laga xoog baday marka waxaani waa tanshiye waxa weeye waa Soomaaliya ayaa la qaybsanaya waa la jarjaraya waxaana u budiga oo hayo hogaanka bisan ku hayo wax weeye reer garow waa siyaasiyiinta garow laakiin waan ku sheegaya beentaas soconayso Soomaali saamo oo kalamayso marka gaalka ayaa la kala jaray kula ma waxay kula tahay soo iyo sanaagtan uu ku halaaqayaan ayay koonjaas oo musan keemika amba imanka reer garow sheekadu waa isbedeli doonta insha Allah guddiga waxaan ogsoonahay in madasha wadatashiga iyo xisbiga wadani inay ay ku adkeysanayaan in la dhiso 6 wixii ka dambeeya dowlad kumeel gaar ah dalkuna nidaamka uu samaysan yahay ma laha hab noocaas oo loo gudbin karo in dowlad kumeel gaar ah ay dhisanto Somaliland marka xaqiiqo ka hadlay iminkana carabka kuma dufan adigu inaad atraayeen aynu samayno dowlad kumeel gaar shakhsiyan adiga guddoomiyahan arrintan meel la qabtaa in dowlad kumeel gaar wariso horta ku waramay hadda la isdhegeysan waayo oo la wada hadli waayo wax ka soo dhici kara oo arag si yimaado laakiin aanu mabdi'an dowlad kumeel gaar caretaker government adduunka laba wadan baa lahaan jiray Pakistan iyo wax waxaan jiray iyo baashalayda Bangladesh uma waqti dhamaado ay ma jireen loo dhiibi jiray qof technocrat laakiin inaga sharcigeenu ma ogola tan waxa la yimid 2009 waxay foodka laga helay markan diiday mood ayuu faysuu isbedelay ragii maanta ka diiday wax ka mid ah madaxweynaha eeba ka mid ah salaam galba ka mid ah galida hal isku xigsiyo salaabaan iyo magaalada Cabdinaayir maanta la halkii baa ka taagan laakiin dawladna sheegaynu tiya oo cabinet ku ka imanayaan civil society oo kooban oo shaqada qaban san lagu heshiinayo inta hayn sameesh dadka dawladda dalkeed midnimadeeda hagaajinaysa si lagu gaadhay shirkaas ay ka soo baxaysa waxaan ku heshiinaa waa sharci meel ku yaala 26 marka dhawata dawlad 70 qof dhisoo khusuus soo sidii maanta uu sameeyay madaxweynuhu uu bedelay ishaashadeynta si uu hadaysan lixdo meel ku taana jiro baarlamaanku inuu fadhiyo 5 sano wadani hadla ma hanayna hadla way wadani 5 isna 5 fadhiya hadana irro iyo siraayo waa isku case siraayo wali mu gaano rag laynta ka joog baan leenahay hadana rag lay ku dhaaf amaga noo furado hadallo ما هي إنه وضعنا حضلات يصحيح ما كانت أنا كتلينا إن شاء الله تعالى أنا كتلينا وطلع وحنا مستقر بالله منيا وحي اللي هو شيء هالكاس أي نوع شرعي لما هذا وشترن كي مدعوين ولا ما هذا
لحياتك تشوف قدر بحنا جت الفرصة وتايد تكرر وعد حسب قرر يمكن وين بدنا هالك فديان ورسك وركس حافظ هذا ما قبطين كا وعد مرنا عرف ما تعرف ما تم حد كل عبير لاي وعد سيدي وجود يركروسين هاي دور الشرا هنا يدعوا الله في اليوم يخدي أي دعوا تا كل الجارك حسبيها سيديرتي يعني حسبيها ما تعرف قياس ما حق قياس وده كل شو الدور شو بتعني ما صار بيسرائيل ديوان قلنتي اكستشن انت تدور شغله ما سمعت ثاني لا يمكن ما سمعت ولي شو الدور الشو ما لم يمكن لا يكون شيء انا نقول لك تعال نحن وجه تحمض يقرا كان وجه وضميت الدوميه انا كل حقيقه wadamadan adduunka aynu joogno kaca ku faarso maray dagaala laga soo gudbiyay qabiila la soo laayay boqortooyin baa la soo laayay waddan kasta dhibaatooyinka waa soo wada maray imika waxaad sheegtay in mas-uuliyiinta reer Soomaaliya ee aad maadeerka ku sheegtay uu shiray in Soomaaliland dhibaatooyinka ka dhigtaan iyo halka ay markeenaan inay u tashadeen meelaha ay ka heleen lug booliska ama qodobadooda ay tahay saxaafadda Soomaaliland waxa ka baxay ay daawadaan ma isleedahay wax badan oo ay ahayd in local ahaan loo dhameeyo hoos looga hadlo in adiga laftaada imika saxaafadda ka sheegtay oo ay faafi doontay telefoon noqoto laga faa'iideeyo أنا هذا واحد لقى فايسة مشي واحد قال له سيان لا شيء لح بلاد ما نحلي وقت اللي هذا قولي له يبي لح لا وحن أركي وحن هيان لقى فايسة لكن ما كان كان سوق قاعد أو دجال قبصله وأنا أركض الكيني واحد كسعده وأنا بودي هنا واحد كسعده واحد هريرين كسعده وين دليش على شيء دليل بدن بات ولي واحد عنهم دليل مشي واحد نور واحد حتى عشان دلكي وكل داتسي وكل بسين لكن الحافظين واللوكل يجوا يسلد ماملك عاي أي قرن كحيليا أنا بيرد وأنا كخب بدي خب كلا ما ضواني هنا كهنا على موضوع ما حنا وحوي وحنا أمد سكوت شدة وهوز شدة مثلا وركها الواقع أنا يمكن أنت عن قبتي إن صور رجنا إن بدنا ما صار لله مهدي سبحانه وتعالى بياني اللي صوص وصوي وأنا كسر كتادي لكن ترى لو بهيان حافظنا وحوي دوس أحمد السلام عليكم كتبي أنا ولا عليك صدق أنا أحمد حتى عيسى يعني لو حياة وياه كقرآن ما بالشدة هي سياسة الصومال الآن مركا هو كمان نقول لنا إن معارضة دون بالعيد دولة هذا يشتري كل دولة دي عن كل شخصين حتى أنا ما أنا هاي مركا قارئ كلنا دولة دي أنت وتكتانو كلنا صدق ولا قبل هيدا وفردها كتوبي وكلاه رجعوا كذا مسحوا ورجع سيتوب تحريكوا يسمعنا سو دويكا برنامج تاسو عن فيصل مكاول شيء طبعا كاول قال لي الوزير كان عصبوج عليا إنه وسارد كعيو وضد كانوا متعلمين وكوكا خا مالك كلا كوكا خاص يعني سبيشاليست ده بو كمان هذه قرطة مجا واقع جيانو هذه قال كلام ما جي تذكر هذا وان وطنا وأنا أوبن وفري وسير كني وحكوا قالوا إنه وسارة ده السوق والسوق كان كا مقالة أنا ساي رجع قصو كينيا معاه من أدو في عنه كينيا لو مقالة كينيا جيبوتي سنة إنك أدو في عنه لو مقالة وده هذا تطلع على كينيا أدو في عنه بالحرة كلا تشوفه بالحرة كاملة أنا معايا كاملة ولا كينيا ما قلتنا وان إن شاء الله تعالى هذه غير كم حد سألت أنا اللي هقول إن شاء الله. قدومي السؤال شو بدها حقيقة كوي ديو معلومي وجود بالسومال لا حسوا كاري لجان كلا الصومالي كلا قحوتي كمان هي اليمن والصومالي ذا منطقة هالكاس كسوري كسومال لا دور كقاعدين يو كحسب يقعد أرمها سي قحوتي له. دور تقحوتينا صومرنو وقحوتي وتقنا وضدهم قالت شيء حسن. دور الصومال لا أوري واحد سميه قرشيه بيسميه وحلا تسمين دوين لا إسكرين كريو لأن ريال كنت تدي دوامي هنا أنت ضد مكانات وطك دبعتك هنا أنا هنا إسكرين أنا لو ذاك دوين وده ما تشارك أنا لو ذاك جمنا إياه سميتنا إن شاء الله